Saaxiibayaal soo dhawaada. Waxaynu ka hadlaynaa maanta mowduuc ku saabsan arrimaha jacaylka. Arrimaha uu ninku ku xusho gabadha uu jeclaanayo. Xog muhiim ah oo ku saabsan sida ninka uu ku xusho gabadha uu guursanayo. Nin walba oo dookh ayuu leeyahay, laakiin waxaa jira xulasho inta badan laga wada siman yahay oo dumarka lala raaco. Ma tahay gabar diyaar u ah haasawe? Ma doonaysaa inaad ogaato sirta ragga ay ku xushaan gabdhaha? Haddii jawaabtaadu ay haa tahay, muuqaalkan si degan u daawo, sheer gareey, bulshada Soomaaliyeedna la wadaag. Mahadsanid. Muddada kooban ee muuqaalkan aad daawanayso waxaan soo bandhigi doonaa 7 arrimood oo ay nimanku door bidaan inay yeelato gabadha ay nolosha la wadaagayaan ama ay jecel yihiin. Adiga haddii aad leedahay waa sidii loo baahnaa, laakiin haddii aad liiskaasi iska weyso ku dadaal sidii aad safka hore uga geli lahayd wixii hadda ka dambeeyo. Haddaba maxay kala yihiin? 1. Gabar isku filan. Inta badan raggu ma jeclo gabdhaha u dhaqma sida carruurnimada ah ama aan weli qaan gaarin maskax ahaan. Waa inay gabadhu tahay qof nolosheeda maareyn karta, saaxiibadeedna ay yihiin kuwa ay iyadu maareyn karto. Arrinta saaxiibada waxay saameyn yeelanaysaa markii uu dhismo reerka, xilligaasi oo loo baahan yahay isbeddel aan dhibaato keenayn ama lagu kala go'ayn. Gabadha aan tallaabada hor qaadin waa lambarka 2. Dabcan ma aha tallaabadii socodka, waa tallaabooyinka loo qaado dhinaca xiriirka marka uu bilow yahay. Ma waxaa habboon in gabadhu ay marka ugu horreyso codsato kulanka wada sheekaysiga foolka ah mise ninka ayaa ku habboon? Inta ay isbarashadoodu socoto waxaa fiican in gabadhu ay deganaato, tallaabooyinka noocaas ahna ay ka sugto wiilka. Waa suuragal in ay iyadoo hor jeclaato, balse waa in hanaanka uusan ka habaabin wadadiisa. 3. Dayn muuqata. Gabadha uu ninku wax walba u huro, qalbigiisana sida xad dhaafka ah u soo jiidata waa tan u muujisaa inay danaynayso iyadoo aan si toos ah uga sheekaynin marka hore. Waxaa jiro ficillo iyo dhaqdhaqaaqyo ay ka mid tahay eegista uu qofku ku soo bandhigi karo rabitaankiisa. 5. Gabar kulul. Dadka qaar ma ammaanaan dumarka kulkulul ee adayga ku caan baxay. 6. Gabadha ku faanta ninka. Marka uu ku dhex jiro saaxiibadiis, waxa uu weyn ee uu jecel yahay waa inaad adiguna garab taagnaato, adigoo weliba u muujinayo qadarin iyo jacayl. Marka aad ku faanto, wuxuu dareemayaa inuu yahay ninka ugu nasiibka badan uguna sharafta badan ragga. Gabagabo. Waa macquul in arrimahan ay ku adag yihiin gabdhaha qaar ama ayba la yaabaan, laakiin wax walba oo wanaagsan waxay leeyihiin culayskooda. Saaxiibayaal, sheekadeennii maanta ee ku saabsaneed arrimaha jacaylka, si gaar ah raggu dumarka waxyaabaha ay ku xushaan, waa naga inta bogga Mnur Official ayaadna ka daawanayseen. Saaxiibayaal, sheer dhaha mahadsanidin. Soo dhawaada.